waxaanu iska bilaaban doonaa tartankeenii tartankaasi oo ay noo maalgelisay jaamacadda Timcadde ee magaalada Gabiley guud ahaanba dareyska iyo abaalmarinada ayay jaamacaddu tartanka ka qayb gashay iyadana maalgelisay waanu soo dhaweynaa codsigeegii inay naga aqbaleen jaamacadda Timcadde oo runtii jaamacadda weyn ee magaalada qiimo weyn ugu fadhida aad iyo aad baad u mahadsantihiin madaxdii jaamacadda xildhibaanadii isku duwii ciyaarahan ayaa jooga 16 kooxood bay ka kooban yihiin tartankani 16 kooxood koox ka mid ah magaca jaamacadda iyo macallimiinta ay ku ciyaaraysaa kooxda kale caawa furtayna waa Diamond Cosmetics waxaan jecelahay inay nagu soo dhaweeyoon ugu horeyn aan kelmadda siiyo Cabdinaasir oo ugu horeyn Ramadaan Mubaarak caawa jaamacad ahaan waxa farxad noo ah inaanu koobkan u dhigno dhalinyarada cuslaatay ama wareegan kuwaas oo ay ku ciyaari doonaan dhalinyarada cuslaatay gobolka Gabiley kana kooban ilaa 16 kooxood jaamacaddu waxay mar walba u taagan tahay dhiirigelinta dhalinyarada taasaana kulli hadafyadu jaamacadda ka mid ah inay ka qayb qaadato waxyaalaha arrimaha bulshada marka insha Allah waxaan u rajeynayaa guul dhalinyarada dhamaanteedba jaamacadduna mar walba waxay dhiirigelinaysaa dhalinyarada oo mar walba barbar taagan tahay siyaabo looga kaaftoomo waxyaalaha bilowdaha ee dhalinyarada ku mashquulsho sayna taas u dhicin bay mar walba u taagan tahay inay dhiirigeliso farxad bay noo tahay caawan inaan goobjoog u noqono insha Allah isagoo dhamaaday oo si qurux badan ku dhamaaday iyo soo xiritaankiisa ay noo damayn doona cid kastoo ka qayb gashay iyo dhalinyarada soo abaabushay ee Cabdiraxmaan Dhaylaad ugu horeeyo oo iyaguna hawsha iyo isku dubaridka ka qayb qaatay jaamacaddana fikirka uu la yimid aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa cid kastoo ka qayb qaadatay hawsha quruxda badan leh jaamacadduna waa jaamacadeennii waa mar walba inay dhalinyarada dhiirigeliso oo hawlaha khayriga ka qayb qaadatay u taagan tahay farxad bay noo tahay in fikirka dhalinyarada iyo xiriirka gobolka ee kubadda cagta ay keeneen anaguna runtii maadaama jaamacaddu tahay hooyada magaalada runtii waanu qaadanay waxaana nuugu talagalnay in bisha Ramadaan dhalinyarada cuslaatay waxa weeyaan ay ka qayb qaadato waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanada nagala soo qayb galay labada xildhibaan ee golaha deegaanka Axmed Weli iyo xildhibaan Mursal xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland iyo isiduwaha dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka iyo madaxda kale jaamacadda runtii waxaynu u joognaa labadii kooxood ee lagu furayay oo ah laba kooxood oo runtii koox ka mid ah jaamacadda matalayso yihiin macallimiintii jaamacadda iyo kooxda kale oo iyana dhalinyaradii magaalada Diamond Cosmetics ku ciyaaraysa runtii ka jaamacad ahaan farxad bay noo tahay mar walba oo garab taaganahay dhalinyarada gobolka iyo wixii community intervention ee gobolka ka dhacay inaanu qayb ka ahaano farxad aad u weyn bay noo tahay ma ahana markii koobaad waxa weeye mar walba inaanu ka qayb qaadano waxa isna noo soo socdaynu qaban doonaa koobkii jaamacadda oo isna koob aad u weyn ah oo isna qaban qaabadiisa laba bilood kadib bilaabi doona haddii Alla ka dhigo runtii ku soo dhawaadaan la insha Allah waxaan farxad u rajeynayaa dhammaan kooxaha 16 kooxood kelmadaydu waa hambalyo waxaan aad u hambalyeynayaa jaamacadda Timcadde oo runtii garab istaag weyn u muujisay bahda ciyaartooyada cuslaaday runtii waan uga mahad celinaynaa ka wasaarad ahaan garab istaaga weyn ee aad u muujiseen dhalinyarada inaad mar labaad waxa weeye sportiska dhiirigelisaan ciyaaraha garab istaagtaan waxa kale oo aad uga mahadnaqayaa ballanqaadka uu madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda u sameeyay bahda sportiska runtii aad baan u soo dhaweynaynaa ka wasaarad ahaan waa wax lagu farxo in dhalinyaro mixnada kubadda cagta la garab istaago la dhiirigeliyo la maalgeliyo aad baan ka wasaarad ahaan idiga mahadnaqanaa dhiirigelinta aad u samayseen aad baan farxad bay runtii noo tahay inuu caawa halkan aynu iskugu nimaadno oo aynu ku daahfurayno wareegga bisha barkaysan ee Ramadaan dhalinyarta cuslaatay oo ay maalgelinayso jaamacadda Timcadde ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa in runtii aan u mahad celiyo bogaadinana doorka muhiimka ah ee jaamacaddu ay qaadatay runtii oo mudan in la bogaadiyo ka gol ahaanna wayna farxad gelinaysaa in kulamo noocaana aanu nimaadno oo dhalinyarta lagu dhiirigelinayo oo qayb lagaga noqonayo sidii loo jihayn lahaa looguna fududeyn lahaa sidii wareegyo noocana runtii loogu qaban lahaa in runtii doorka ay jaamacaddu buuxiso oo ay wareeggan soo qabqaabiso dhalinyartana ka taageerto aad baan guud ahaan maamulka iyo macallimiinta jaamacaddaba runtii cid kastoo hawshan gacan ka qaatay uga mahad celinaynaa mar labaad dhalinyarta hawshan soo agaasintay iyaduna qaybta ka ah wareeggana qabaqaabadiisa iyo qabashadeeda lahaan doontana aad baan runtii iyagana runtii aan uga mahad celinaynaa uguna amaanana shaqada wanaagsan hayaan maalmihii intii u dambeysay bilowgii bishan ilaa imika runtii waxaad moodaa in si xiriir oo isdaba jooga
garoomada gobolka guud ahaan ay shaqo weyn uga socoto wareegyo iyo ciyaaro kala duwan ay ka dhacayaan guud ahaan degmooyin kala duwan ee dalka gobolka gaar ahaan degmada runtii taasna waxayna tusaysaa kobaca ku imanaya sportska magaalada aadna runtii ka maamul ahaan iyo ka mas'uul ahaan inoo farxad gelinaysaa jaamacaddana doorka ay qaadatay waan uga mahad celinaynaa dadka kale daneeyayaashaana runtii inay iyagana doorka iyo ku lamid iyagana qaataan ayaan iyagana u soo jeedinaynaa sharaf weyn bay inoo tahay inaynu halkan caawa ka daafurno koobkan ay jaamacadda timcadde ay ugu tala gashay inay ku dhiirigeliso dhalinta cuslaatay ee koobka rabadaanta waxaa laynoo sheegay halkan in agabkan biladaha hadday biladaha tahay hadday koobka tahay iyo hadday hawl socodsiinta tahayba ay noo fulisay oo ismoonsar garaysay jaamacadda timcadde waa wax weyn oo lagu farxo iyadoo jaamacaddu jaamacad dawliya iyadoo dadka muxuu ahaayey gobolka ka soo jeeda guud ahaan barbar taagnayd iyo Somalilandba iyadoo aynu uga baranay scholarshipyo bilaash oo ay dadka aan awoodin inay jaamacadda iska bixiyaan ay siiso iyadoo aynu ognahay muxuu ahaayey sharafka iyo wanaagga ay ku soo kordhisay gobolka intii ay jirtay iyo sida ay u nageysay ardaydii marka ay jaamacado u baahdaan gobolka ka guuri jiray ee caasimadda iyo gobollada kale u guuri jiray inay ku darto qaybahan dhiirigelinta ee dhalinyarada hore looga bartayna waa wax weyn weeyi waan soo dhaweynaynaa dhammaan 16 kooxood ee saftay ama safanaya koobkan aynu halkan caawa ku daafurayna iyagana guul baan dhammaan u rajaynaynaa waa rag waaweyn waa raggii gobolka ka soo ciyaaray waa dhalinyaradii hore ee cuslaatay looga baqi maayo amniga iyo muxuu ahaayey anshaxa ciyaarta inay ilaaliyaan midna waa rag lagu kalsoon yahay weeyi waxaan u rajaynayaa dhammaantood guul insha allahu tacaala jaamacadda timcaddana aad baan u hambalyaynaynaa aad baan u mahadsantihiin dhammaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu